بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله الصومالي ملك جوكتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما يلو عدي بندبك الله كقاضو عدي دن لا له وفي انت باهن الله تيقو انت بكتا الله بكسيين تي دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستو annagana allaha nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo badbaadiyo. reer Minneapolis iyo reer Minnesota waa idin salaamayaa si guud. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka iyo dhibaatada laydinla soo aaday ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka meel bixiyo. runtii waxaan rabaa inaan dhinac idinka bogaadiyo resiliensiga iyo adkaysiga waa idinku bogaadinaya, laakiin waxaa ii muuqataa inaad aad u habacsantihiin, kala daadsanaan tiro badan baa ii muuqata. waxaa la ii sheegay qolo PR-ka ka shaqaynaysa inay lacag badan qaateen. I wish lacagtaas la siiyo qolada PR-ka qaadanaysa in la siin lahaa loo yaro dacweeyo dowladda. waxaad u baahan tihiin ciyaaladan youtubada la wareegaya odaygaa xunkaa iyo wiilka isdaba socda meel in la saaray ahayd, laba dhinacba meel in loo saaray ahayd. waan arkay rag aad u canaananayo ka cayriyey meelay soo galeen. They have no right inay businesskaaga yimaadaan. waxaa kaloo la yaab leh markay yidhaahdeen caruurtana tusa uu videoga ku sheegayo ay dowladdii sheer garaynayso inay dowladda Minnesota ay arrintaa jawaab ka bixisay ahay. caruurta in la arko oo dad ajnabiga ay dhahaan caruur baan arkaynaa video baan la soo dhexgelaynaa, it's illegal, it's against the law. caruurta are protected, they're minors. dad waaridaa meesha keensaday oo ku aaminay daycare shaqaynaysa oo magaranaysaa leh laysan oo dowladda u shaqaysa, dowladda og tahay oo laysan siisay oo ka sharciyeysan in magaranaysaa xadgudub intaas leeg inta lagu sameeyo edab darradaas ay dowladdii Minnesota ka aamusto. horaan idinku sheegay dimuqraadigu markii aad dooranayseen meeyarkaana waan idin iri war dad idinka aad doorta. maanta qof idinka ah hadduu idiin joogi lahaa sidaan waa dhaami lahaydeen. dad idinka aad doorta oo caddaan ha dooranina idin iri waa diideen. doorta dadkiina maantaad ogaanaysaan inaad u bahnaydeen qof maalin walba waddada taagan oo maalin walba arrimihiina ka hadla. waxayd inay jawaab ka bixiyaan governorka iyo meeyarka Minnesota, inay jawaab ka bixiyaan edab darrada uu Donald Trump everyday ka soo afuufayo White House-ka. lacagta waxaan maqlay inaad lacag siiseen group PR ka shaqaynaya 80 kuna. lacagtaas 10 laab intaa ka dhigtaan 800,000 iyo milyan gaarsiisaan. waxaa siisaan looyaraad adag oo sharci yaqaana. mar kasta oo shir jaraa'id la qabanayana dad waaweyn oo haddaba aqoon leh luqadda ingiriiskana si fiican u yaqaan waa inay idin hadlaan. waa inay idin hadlaan xildhibaanadiinii, waa inay idin hadlaan iyo senataradiinii, waa inay idin hadlaan city counciladiinii iyo dadka idinka idin matala, waa inay idin hadlaan. waa inay dowladdu ay si joogto ah jawaab uga bixisaa JD Vance iyo Donald Trump iyo dadka qashinka ah oo dadkii ay u bixisay Hillary Clinton qashinka ay u bixisay. waa in loo jawaabaa oo si joogto ah ay ugu jawaabtaa dowladdu. dowladdu waa inay difaacdaa systemkan. caruurta xagee lagu arkay caruur amnigooda khatar la gelinayo? maxaa diiday inay security leeyihiin midaysan? dhaykarada oo dhan security midaysan ay leeyihiin. xafiisyadiina la iskama soo geli karo, waa private property. ma soo geli karo qofna. bannaankay taagnaanayaan ma soo geli karaan. waa inaad haystaan security bannaanka ku celiya oo ka cayriya meesha. marka ay yimaadaan jawaab muhiima waa inay helaan. caruurta ay tus markuu ku yidhaahdo what are you gonna do to them? You wanna kill them? You wanna kill them? su-aashaas weydiin. murderer baa tahay, mass murderer, qori baa kuu qarsoon, inaad wax qarxisaa rabtaa, bun baa wadataa, tooshka ku daar isaga, dib ugu celi. racista tahay, don't come here waa in la yidhahda. waa inay dibadda ku dhacaan oo cararaan. hadday mar yimaadeen odagaan xunka iyo wiilkaas daba socda, mar labaad inay soo noqdaan waa jileec idinka muuqda. waxaan rabaa inaa lays organize gareeyo oo dad adag la samaysto oo liid ah. in miidiyuhu idinla dirirayo waa ognahay, laakiin miidiya kalaa jira, social media jira. idinkaa isu camiri kara, kelib baa soo gelin kartaan, bul markaasaa kulligiin wada geli kartaan oo wada faafin kartaan oo meel walba gelin kartaan, viral ka dhigi kartaan. alternative waa in la arkaa message oo ka duwan midda laydinku shaabadeeyey. community dhan inuu madaxweynihii dalka maalin walba ahayo
oo ay senataradu caayaan oo xildhibaanadu caayaan oo ka aamusantiin aan la dacweynayn isnasiib daro qabsada shirkad looyar ah oo qof kasta oo Soomaali soo qaada Soomaali iyo farood isku xira oo community-ga dhan buraash gareeya dacwo ku ooga oo lawsuud ku fura oo markaa laga soo saaro sharci guud dalka laga soo saaro la yiraahdo it's illegal waa racism by the books. This is the exact meaning about tafsir ama magaraysa textbook definition of racism. Community dhan in lagu cambaareeyo dad xoogaayo 50 qof ka yar 60 qof dad ka yar oo dambi galay maalin walba cadaan ku dambi galaan boqolaal kun oo qof baa dambi galay oo cadaana ninka madaxweynaha dalka ka ah criminal oo fraudster ah oo wuxuu felony convicted 34 counts marka markaasoo kale idinka hadli karo crime ka hadli kara isagaaba criminal chief ah oo magaraysa ninkii madaxda ugu ah 34 counts of felonies 34 felony counts nin lagu helay baa idinka wax idinka sheegayo idin caaya marka waxaan hadalkayga oo dhan ku soo koobaya waa in aad taqaanaan sharciga waa inaad raacdaan by the book waa inaad ilaalisaan sharciga wadanka waa inaad xuquuqdiina ilaalisaan waxa jira rights iyo responsibilities sharciga wadanka waxa idinka saaran xuquuq waa inaad ilaalisaan dhinaca kale waa inaad idinku xuquuqda aad leedihiin dhalashataan waa inaad leedihiin wixii aad u baahnaydeen oo isku difaaci lahaydeen community-yadu waa inay hadlaan ururadu waa inay hadlaan ma ujeedaa keep it up waxaan kaloo misgareeyey dhalinyaradii social media mini Soomaaliya I miss you guys waxaa soo baxday dhibaataa soo baxday wixii dadka loo caayay oo dehumanization loo sameeyay oo loo dhibaateeyay Donald Trump marba loo caayay number 1 waxay ahayd in laydinka baabi'iyo laydinkala diriro entrepreneurship-ka aad caanka ku noqoteen iyo ganacsi inaad samaysanaysaan iyo inaad tihiin dad soo baxaya oo dhaqaale ahaan kobcaya in laydinkala diriro waxaan ka yaabay gaaladu waxay leeyihiin midkii doqonka Tucker Carlson baa wuxuu yiri waa unsuccessful Soomaalidu wiil yar oo difaacanaya daykeer ay leeyihiin oo hadlayana waxay cayr bay qaataan buulaha kaas ma noola madaxweynaha cayr bay qaataan dhinaca kale hadda waxay ka dacwoonayaan wiilka ookiyaalaha uu qabo $2500 way big one you can have both dad cayra oo aan shaqaysan miyaanahay mise dad nool oo shaqaysto oo haystaanahay waxoodana ku labisto oo qurux badan labada meelna saar dad successful aanahay mise dad weak aanahay meel uu nagu hagaaga Soomaalidu waa dad nool dad aqoon ahaan dhisan dad magaraysa dhaqaale ahaan dhisan dad siyaasad ahaan dhisan mawjada kala daadsanaan baa ii muuqata midnimo hala sameeyo ururo adag hala dhiso group adag hala dhiso oo advocacy-ga iyo difaaca ummadda Soomaaliyeed qaabilsan dad badan oo hadal yaqaan ah jireen dadkaas iska soo hormariya si joogto ah ha loo qabto shir jaraa'id banaankana u soo baxa yaan la wada gaban banaanka u soo baxa cidii sharci leh oo aan baqayn banaanka u soo baxa khayr badan baa idin rajeeyaa billahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh